Hogan 24 Media ka dhigo wehelkaaga. Salaamullahi calaykum dhammaan asxaabtana daawanaysay. Subax wanaagsan, halkani waa barta aan ku leenahay YouTube-ka Hogan 24 Media. Aniguna waa Cabduuli Macallim Alto. Waxaad nagu soo dhawaataan wararkii ciyaaraha ugu dambeeyay iyo sidoo kale wararkii suuqa kala iibsiga kubadda cagta oo aad ku maqli doontaan qaybaha dambe ee barnaamijkeena. qodobada idinku waaya barnaamijkeena saaka waxaa ka mid ah kooxda Manchester City oo la shaaciyay inay heshiis shakhsi ah la gaartay Lionel Messi. Antonio Rudiger oo ka hadlay doorka uu ka ciyaaraya inuu hafad ku biiro Chelsea. xidigii hore ugu soo ciyaaray Real Madrid oo haatan aaminsan in Lionel Messi uu ka tagay naadiga Barca. muxuu ka yiri Frank de Jong mustaqbalka Lionel Messi? iyo taageerayaasha Barcelona oo doortay xidiga ku habboon beddelka Lionel Messi. haddaba waa kuma waxa aad ku maqli doontaan barnaamijkeena saaka qodobadaas iyo kuwa kale oo xiiso leh ee daawasho wacan. aynu ka horeyna kooxda Manchester City ayaa lagu warramay in heshiis shakhsi ah la gaartay xidiga Barcelona ee Lionel Messi iyagoo u soo bandhigay qandaraas 5 sannadood ah oo 3 sannadood oo kamid ah uu ku qaadanay Etihad Stadium sida uu sheegay journalista caanka ah ee Duncan Castles oo ka hadlayay barnaamijkiisa The Transfer Window Broadcast. journalista ayaa sheegay inuu Messi ogolaaday inuu 3 sano ka ciyaaro horyaalka Premier League kahor inta uusan u wareegin horyaalka Mareykanka ee Major League Soccer labada sano ee uga hartay qandaraaskiisa isagoo u ciyaaraya kooxda New York City. labada kooxood ayaa ka wada tirsan shirkadda City Football Group iyadoo ciyaaryahanka sidoo kale loo soo bandhigay inuu saami ku yeesho shirkadda. faahfaahinta laga bixiyay heshiiska ayaa in xidiga reer Argentina uu qaadan doono 700 milyan euro muddada 5 sano ee uu ciyaarayo labada kooxood. wuxuu warkan daba socdaa warbixin ay baahisay jariiradda Marca oo ay sheegtay in Manchester City ay heshiis 3 sannadood ah u bandhigtay Lionel Messi iyadoo ay socdaan wada hadallo aan toos ahayn oo u dhaxeeya labada dhinac. inkastoo Messi uu doonayo inuu si bilaash ah ku baxo, haddana naadiga Blaugrana ayaa diidan inuu sharci ahaan sidaas ku bixi karo iyagoo doonaya in la siiyo 700 milyan euro ee lagu burburi karo qandaraaskiisa. waxaa la sheegayaa in City tahay kooxda ugu habboon ee uu ka degi karo xidiga reer Argentina maadaama uu xiriir fiican oo shaqo uu la leeyahay tababarihiisii hore Pep Guardiola halka ay sidoo kale saaxiibo dhow yihiin xidiga kale ee reer Argentina Sergio Aguero. dhinaca kale xidiga Chelsea Antonio Rudiger ayaa door muhiim ah ka ciyaaray in Timo Werner oo ku biiray naadiga Chelsea horaantii xagaagan. daafacan ayaa qirtay inuu rajaynayo in caawintiisu ay mar kale shaqeyso iyadoo uu hafad qarka u saaray yahay inuu u wareego naadiga Chelsea. naadiga Chelsea ayaa ilaa haatan sameysay 5 saxiix iyadoo kooxdeeda keentay xidigaha kale ah Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell, Malang Sarr iyo Thiago Silva. naadiga Chelsea ayaa haatan qorsheynaysa inay dhameystirto u dhaqaaqista xidiga Bayer Leverkusen ee Harvard kaas oo lagu soo warramay inuu ogolaaday qandaraas 5 sannadood ah oo ugu biirayo kooxda uu leeliyo tababare Frank Lampard ee Chelsea. ciyaaryahanka Harvard ayaa gudanaya waajibaadka xulka qarankiisa taas oo la micnaa in ku dhawaaqista heshiiska ay dib u dhici doonto. laakiin xidiga isku xulka yihiin ee Rudiger ayaa u muuqda mid kalsooni ku qaba inuu xidigan dhawaan u ciyaari doono naadiga Chelsea. dhinaca kale halyeyga xulka qaranka Argentina ahna xidigii hore ee naadiga Real Madrid ee Jorge Valdano ayaa fikirkiisa ka dhiibtay xaaladda xidiga Lionel Messi iyo naadiga Barcelona. xidiga Jorge Valdano oo 3 sano ku qaatay naadiga Real Madrid ayaa rumaysan inuu haatan ba ciyaaray Messi kulankiisii ugu dambeeyay naadiga Barca. mar waliba oo ay naadiga Barcelona hore u xaqiiqsato waa mid ay u diyaar garoobi karto bixitaanka Lionel Messi haddii uu tago koox kale ama uu ku laabto horyaalka dalkiisa. laakiin haatanba uu ka tagay Barca wax shaki ahna kama qaba ayuu sheegay. marka ay Barca si degdeg ah u aqbashay inay weydo xidigooda ugu fiican waa mar waliba ay u diyaar garoobi karaan dubadhiska kooxdooda. sababtoo ah 33 sano jirkan ma awoodi doono inuu Barca ka saaro xaaladan mar kale, laakiin wuxuu doonayaa kaliya inuu sii ahaado Lionel Messi. sida laga soo xiganayo wargeyska Isbaanishka ee Cadena SER, Manchester City ayaa dardar gelinaysa soo qaadashada Lionel Messi si ay uga dhabeeyaan damacooda ah ku guuleysiga tartanka UEFA Champions League. dhinaca kale xidiga qadka dhexe ee kooxda Barca ee Frank de Jong ayaa sheegay in Lionel Messi uu wali la xiriiro saaxiibadiisa Barca inkastoo uu doonayo inuu baxo xagaagan. Lionel Messi ayaa ku wargeliyay maamulka Barca rabitaankiisa inuu baxo, laakiin Jose Mario Bartomeu wuxuu doonayaa inuu xaaladda adkeeyo wuxuuna ku adkeysanayaa in la bixiyo qiimaha lagu burburi karo qandaraaskiisa
haddii uu doonayo inuu ka tago naadiga reer Catalonia ka hor bilowga xilli ciyaareedka cusub. haddaba laacibka reer Holland ayaa dhowaan waraysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay Messi waxaan weli ku wada hadalnaa WhatsApp-ka gaarka ah ee kooxda Barca, waxaana rajaynaynaa inuu nala sii joogi doono, laakiin waxaas aniga iguma xirna, aniga maahan qofka ay tahay inuu la hadlo isaga. xaqiiqdii xilliyadii dhawaa ee lasoo dhaafay waxaa jira shakhsiyaad badan oo isaga si aad ah ugu dhawaa. haddii uu runtii Messi baxo waxay dhabarjab weyn ku noqon doontaa kooxda, laakiin marka aan ka soo laabto kulamada caalamiga kadib waxaan arki doonaa waxa kooxda ka dhaca, balse hadda waxaan diiradda saarayaa waajibaadka xulkeyga qaranka. intaas kadib Frank de Jong wuxuu ka hadlay maatinka Ronald Koeman ee kooxda Barca, wuxuuna yidhi waan ku faraxsanahay taas, laakiin waxaan ugu xiisi doonaa xulka qaranka Holland. kaliya waqti yar ayaan kala hadlay taleefanka, laakiin markaa tago Barca waxaa laga yaabaa inaan kala hadlo waxyaabo kale sida booskeyga. dhinaca kale taageerayaasha kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa xiddiga qadka dhexe ee kooxda Manchester City Kevin De Bruyne u doortay beddelka Lionel Messi haddii uu Lionel Messi ka tago kooxda xagaagan. xiddiga reer Argentina Lionel Messi ayaa toddobaadkii hore maamulka kooxdiisa u sheegay inuu doonayo inuu isaga tago kooxda xagaagan, isagoo xitaa warqadda bixitaanka u gudbiyay ilaa haatanna diidan inuu ku soo laabto tababarka kooxda. wargeyska Mundo Deportivo ayaa sheegay in taageerayaasha Barcelona ay doonayaan xiddiga qadka dhexe ee Kevin De Bruyne haddii uu ka tago Lionel Messi kooxda xagaagan. cod dhan 56% ayay taageerayaasha Barcelona ku doorteen inuu De Bruyne noqdo beddelka Lionel Messi haddii uu kabtanka ku adkaysto ka tagista Barca. weli daawadayaal waxaad inaga daawanaysaan barta aan ku leenahay YouTube-ka ee Hogan 24 Media. haatanna waxaad ku soo dhawaataan qaybtii ugu dambeysay barnaamijkeenna oo aad ku maqli doontaan wararka suuqa kala iibsiga ciyaaraha. aynu ka horreynay naadiga Everton ayaa heshiis kala gaartay Real Madrid saxiixa kuba sameeya James Rodriguez, iyadoo la filayo in goor dhow heshiiskiisa si rasmi ah loogu dhawaaqo sida ay shaacisay Telegraph. xiddiga reer Colombia ayaa heshiis 3 sannadood u saxiixi doona kooxda Premier League ka dhisan, isagoo dib ilo midoobi doona tababare Carlo Ancelotti. dhinaca kale naadiga Arsenal ayaa dhamaystirtay daafaca aadka loo qiimeeyay ee reer Brazil Gabriel Magalhaes, iyagoo kula soo wareegtay lacag dhan 30 milyan oo euro, wuxuuna kooxda u xiran doonaa nambarka 6. dhinaca kale xiddiga qadka dhexe ee Barcelona Ivan Rakitic ayaa si rasmi ah ugu laabtay kooxda Sevilla, isagoo aqbalay inuu kala bardhimo mushaarkiisa, halka Arturo Vidal uu qarka u saaran yahay inuu ku biiro naadiga Inter Milan. dhinaca kale xiddiga Van de Beek ayaa ku dhow inuu dhammaystiro ku biiritaankiisa Manchester United, iyadoo ay Daily Mail sheegtay in xiddiga qadka dhexe ee Holland uu xiran doono nambarka 34, isagoo ku sharfaya saaxiibkiisa Cabdulxaq Nuuri, kaasoo xanuun dhibaato u geystay maskaxdiisa uu ka soo gaaray sanadii 2017. naadiga Roma ayaa lagu soo waramay inay heshiis joogto ah kula wareegayso daafaca dhexe ee Chris Smalling, waxay wada hadallo kula jiraan kooxda Manchester United si ay heshiiska u dhammaystiraan. kooxaha Liverpool iyo Manchester United ayaa ku dagaalamaya saxiixa Thiago Alcantara, halka naadigiisa Bayern Munchen ay doonayso inay ku fasaxdo lacag ka yar 30 milyan oo euro. naadiga Bayer Leverkusen ayaa ku dhow inay la soo wareegto weeraryahanka Roma ee milkiyadiisa leedahay ee Patrick Schick, kaasoo amaah ku jooga naadiga RB Leipzig, waxaana fududeed doontaa inuu hafaad u wareega naadiga Chelsea. Blues ayaa doonaysa inay dhamaystirtay heshiis 100 milyan oo euro ay kula soo wareegayso xiddiga Jarmalka ah. dhinaca kale sida ay sheegtay jariirada Jarmalka ka soo baxda ee Bild, tababaraha Bayern Munchen ayaa weydiistay maamulka kooxdiisa inay heshiiska amaahda ee Ivan Perisic u bedelaan mid joogto ah. Bayern Munchen waxay hadda wada hadallo la furtay kooxda iskale milkiyadiisa Inter Milan. naadiga Juventus ayaa kulankii labaad la yeelatay wakiilka weeraryahanka Barcelona Luis Suarez, sida ay sheegtay La Gazzetta dello Sport. waxay soo muuqataa in heshiis 10 milyan oo euro uu qaadanayo xilli ciyaareedkii la isla gaaro. daafaca Arsenal u ciyaara ee Socrates ayaa ku dhow inuu ku biiro naadiga Napoli. daafacan Greek ayaa galaya sanadiisii ugu dambeysay qadaraaskiisa Arsenal, wuxuuna dheeri ku noqday xiddigaha uu u baahan yahay tababara Mikel Arteta. Rai Sport ayaa sheegaysa in Napoli ay ku dalbanayso 4 milyan oo euro. naadiga PSG ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay beddelka Thiago Silva oo ku biiray Chelsea ay u dhaqaaqday daafaca Inter ee Milan Skriniar, iyadoo maamulka PSG haddaba wada xaajood kula jiraan naadiga Inter Milan. dhinaca kale kooxda Manchester United ayaa waxay u dhaqaaqday inay soo xirigeliso daafaca aadka loo qiimeeyo ee Dayot Upamecano, kaasoo kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub ay wada xiiseynayaan. ugu dambeyntii tababara Antonio Conte ayaa doonaya inuu kooxdiisa Inter Milan keeno xiddigii uu Chelsea kula soo shaqeeyay N'Golo Kante, laakiin Blues ayaa qiimaha uu Kante ku bixi kara ka dhigtay 80 milyan oo gini,
waxaana qoraya wargeyska Daily Express. waxaa halkaa inoo eeg barnaamijkeenii saaka oo aan idiin soo gudbinaya aniga oo Cabduuli Macalin Maalto. haddaba si aad u hesho barnaamijyo xiiso leh iyo wararkii ciyaaraha ugu dambeeyay fadlan subscribe saar gabalaalkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya hela barnaamijyadeena. hana hilmaamin inaad la wadaagtid asxaabtaada adigoo sheer garanaya muuqaalkan. waxaan idin leeyahay waa inoo kulanti dambe iyo barnaamij xiiso leh fi amaanillah.